waxaanu ku jirnaa ololo ballaaran oo nadaafadeed oo khaasatan lagula dagaalamayo bacaha iyo caagadaha balaastigga ah kuwaasoo deegaanka iyo dadka iyo duunyadaba ku haya dhibaato nafeed waana dhibaato maxaan idhaahdaa innaga bulsho ahaan aynu ku samaysanayno gacanteenna waxaan ognahay haddii la yidhaahdo Garowe waa magaalada ugu nabad badan Soomaaliya Garowe waa magaalada ugu nadaafad badan Soomaaliya Garowe waa magaalada ugu dhir badan Soomaaliya erayadaas oo kale markay dhagahaaga ku soo dhacaan qof kasto inaga mid ah aad iyo aad buu ugu riyaaqaya una jeclaysanaya jacaylka noocaas marka waxa la rabaa oo laga rabaa inay fuliyaan oo sidaas aan sheegayno laga dhigo deegaanka waa bulshada weeye iyo dawladda oo wada jira hawsha aanu hadda ka shaqaynayno ee cashuurtii dadweynaha laga qaaday ay ku baaba'ayso ee ay ku silcayaan dadka qaybtiis waa hawl eedeeda ay leeyihiin dadka deegaanka degan dad muslimiin baan nahay dad dhaqan leh baan nahay duunyaynu ku noolahay in wixii duunyadana dabar tirayay oo maxaan raahday bishii hal tiro iyo konton neef ayaanu qaadnaa oo bacidishay wax loo dulqaadan karo iyo wax damiirku xamili karo midna ma waxa qallashay dhirtii oo bacdi isku martay hoosteedii waxa yaala caagadihii inaga geynay bacdana inaga tuuray horta marka koowaad waxaan rabaa inaan iraahdo dawladda Puntland golaheeda sharci dejinta inay arrinta dib u eegaan bacaha dabcan hal irida bay ka soo galaan haddii si oo waa dekada haddii si kale loo dhigana kastamada magaalada ka soo galaan waa wax la ilaalin karo kastamka Koonfureed midka waqooyi iyo dekada magaalada Boosaaso waa laga adkaan karayaa gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa arrinta in dib u eegis lagu sameeyo bacaha dawladdu cashuur bay ka qaadaa deegaanka lagu soo daayaa dadkii iyo duunyada iyo deegaankana way baabi'iyeen annaguna fuusto dalooshaan dhaaminaynaa dakhli iyo kharash baa ku baxa maanta meeshaanu nadiifino berrina waa sideedii weey inta baarlamaankan leenahay iyo xukuumadeenna waayo wixii dadka iyo deegaanka iyo duunyada dan ugu jirto waa la soranayaa hawshaasuna waa hawl muuqata oo deegaanka ka muuqata dadkana ka muuqata duunyadana ka muuqata bacaha waxaan codsanaynaa in la joojiyo biasrac waqti mumkin haddii ilaahay yiraahdo taas waa taa warshadaha biyaha soo saara mahad ballaaran baan u celinaynaa maalgashi bay sameeyeen waxaan rabnaa inay ku daraan maalgashiga ay sameeyeen iyo faa'iidada ay bulshada ku soo kordhiyeen caagadaha inay u sameeyaan wixii la oran jiray recycling oo dib loogu celiyo warshadii oo dib loo soo sameeyo waa barnaamij la awoodo weey sababtoo ah magaalada inta tiro leeg waa wada caagad shirkadahana intaasaan leeyahay gaadiidka iska rogooyinka oo shaqad baaxad weyn u haya bulshada ee cashuur bixiyayaasha ee dalka iyo deegaanka iska leh iyaguna waxa weeyaan waxa iskaashatay leeyihiin dal dhisbaana la yiraahdaa bay yiraahdeen hab dhaqanka hadda aad wax u wadaan haddii aydina bedelin magaca ma qaadan karaysaan dalbaabiis baa noqonaysaan maalin dhowd waa cabanayseen cabashadiina dawladdu waa ka jawaabtay deegaanku iyo duunyada iyo daaqu way idin ka cabanaya idinkana gaarigu markuu lowrniisa keeno ama dhagaxa keeno wuxuu qaadayaa lowr kale oo baca ah oo caagada ah oo buush laga qaaday oo qaadkii ku jiro wuxuuna ku sayrayaa wajiyada magaalada waa idin la wadaagaynaa sawirradii iyo daliilkii caddaa dhowr iyo 20 baanu qabannay ilaa ma intii aan oolahan bilownay dhirta har kale hooskeeda baad dhigaysaan waxaad dhigaysaan dariiqyada magaalada laga soo galo oo foolxumo ah diinta islaamku ma qabto dhaqankii Soomaalida ee hagaagsanaana ma qabo waxaan rabnaa inaad ka shaqaysaan shaqada idinka aad leedihiin taasoo ah magaciina ka muuqata daldhis daldumis ha noqonina dumarka marfishyada iska leh waxa maalmahan laga cawdaa dawladda hoose baa wax naga dumisay dawladda hoose sandaqa dumisay dawladda hoose waxay dumisay marfish lagu qaylo meeshii loo arko
dhibteeda iyo dheefteeda in dhibteedu badan tahay haddeeraan sheegaynaayo waa la dumin doonaa waxaan rabnaa dadku inay ku xidhmaan shirkadda shaqadan iska leh oo la yiraahdo daryeel deegaan oo dadka ka qaadaysa lacag aad iyo aad u khafiif ah qashinkiinana la geeyo godka loogu talagalay ayaa la doonayaa waa la duminayaa buushashka intay soo saaraan wasakhda ugu badan iska rogooyinku ay ka sii qaadanayaan oo ay ku qubayaan dhuldaaqsimeedkii iyo dariiqyadii magaalada soo gelayay dadka reer Garowe waxaan rabnaa dhammaanteen inaynu noqonno kuwa qashinkeena maareeya sida hadda inoo qorshaysan oo aan rabno magaaladu inay noqoto magaalo aad iyo aad u nadiif ah way tahay laakiin waxa daba jooga deegaankii oo baco iyo aan iraahdo plastic uu fara kulul ku hayo magaaladu waa nadiif sideeda kale shirkadda daryeel iyo dawladda hoose ayay tahay shaqadeeda rasmiga ah inay qashinka qaadaan magaalada nadiifiyaan laakiin haddii aan garab laga helin dadweynaha dawladda hoose oo dhan waxa laga yaabaa inaysan 150 qof ka badnayn magaaladana dadka ku nool waan garanaynaa qof kasta hadduu caagad cabo waxa soo biyo amaaninta cabo waan garanaynaa qashinka ka soo baxaya inta dadku nool yahay qashin waa jiraya laakiin maaraynta ayaa muhiimadda iyo hadafka aan leenahay aan ku gaari karaynaa bulshada reer Garowe waxaan leenahay magaalada waxaan u hayaamaynaa inay noqoto magaalada ugu nadiifsan geeska Afrika shaqada nala qabta oo gurigeena haama dhigta oo qashinkiina subax kasta waa la idinka qaadaya waxaan kale u sheegayaa inay noqoto magaalada ugu cagaaran oo ugu dhirta badan inta hadda maxaan niraahdaa aan gacanta ku hayno mashaariicda cagaarinta magaalada